madaxtooyada Soomaaliland waxa uu soo taagnaa maalmo kala duwan oo qarankani lahaa waxa uu ka mid ahaa garaantii dawladnimo ee dalkan waxa uu ku soo dhex jiray qaybna ka ahaa isbeddello tiro badan oo dalkani dunida ku hiigsanayay dhismaha sharci iyo kala dambayn intaba cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro waxa uu ka soo dhex baxay baratamayaal ururo siyaasadeed oo fara badan waxaana siyaasiyiinta Soomaaliland dhexdooda loogu yeedhaa siyaasigii dulqaadka deganaanta ku caanka ahaa cabdiraxmaan wuxuu leeyahay quality ama saameyntii qofka hogaamiye ee aynu maanta filayno inuu wadankan dhibta ka saaro hogaaminadu u baahan tahay dulqaad waxay u baahan tahay aqoon cilmi waxay u baahan tahay aragti dheer qof ka hadli kara vision leh oo maanta 10 sano 20 sano 30 sano Soomaaliland xagee tagaysa qof maanta bulshadu waxay ku nooshahay waxay ku jirto qof wadciga aynu maanta ku jirro isir nooga saarla qof nabadda aynu maanta haysan xoojiya qof maanta aan dadka kala qaybin qabyaalad ku shaqayn ummadda isku ururiya oo ka dhiga ummad midaysan oo Soomaaliland ku abtirsata laba sifo aan cabdiraxmaan ilaa bilowgaan aqaanay ilaa maanta uu leeyahay oo dulqaad iyo inaanu xaajada ku degdegin oo laba sifo oo wanaagsan diintuna amaantay alxilm wal inaaba leeyahay waa laba sifo oo diintu amaantay dadka siyaasadda falanqeeya waxay ku tilmaamaan in khibradiisa maamul iyo siyaasadeed ay tahay mid awood badan oo waayo aragnimo ku laran tahay taasi oo u sahashay kasbashada siyaasiyiinta Soomaaliland intooda badan nin waayo arag oo shaqeynaya waa diblomaasi caalamka ka soo shaqeeyay wasaaradda khaarijiga ka shaqeeyay wadannada caalamka oo ka soo shaqeeyay aad buu u safray wuxuu arkay inuu maanta wadankan u baahan yahay leadership cusub oo waxan ka saari karta gudoomiye cabdiraxmaan li fudud maaha nin aad u degan siyaasadana waxyaabo badan Soomaaliland ku dhaqmi karto ka bedeli kara waa nin diblomaasi ballaaran oo ka shaqeeya caalamka Soomaaliland muddo badan xilkaay dadka jecel waxay ku jecel yihiin dulqaadkiisa kuwa aan jeclayna waxaanay ku jeclayn dulqaadkiisa waa maqlaayay ها dadku waa ku amaanay anigu wuxuu ku arkay muuqay anigu kuma amaano dadku soo waxay nin cisal la yiraahdo yaynu ogol lahayn ma garan marxaladda maanta la marayna waa kaaga waramay anigu waxba kaama rabo ka warramay iibir neel yaa xaaladda goyna taagan siyaasigan oo xilligan hadalhayntiisu aad ugu badan tahay Soomaaliland iyo gobolka Geeska Afrikaba waxa uu ku dhashay sanadii 1955 magaalada Hargeysa oo hadda caasimadda Soomaaliland ambaqaadkii waxbarasho waxa uu ka bilaabay magaalada Berbera oo ku qaatay waxbarashada aasaasiga ee dugsiga hoose Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro isagoo sii wada geedi socodkiisii waxbarasho waxa uu ku qaatay dugsigii dhexe iyo kii saraba hilaadii 1977 dugsiga Sheikh Secondary School intaasi wixii ka dambeeyay mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro waxa uu jeena qaartay waxbarashadiisii sare uu ku qaatay meelo fara badan oo kala duwan Dr. Cabdiraxmaan Ciro shahaadada MBA waxa uu ku qaatay Sidham College oo ku yaala magaalada Muqdisho shahaadooyinka kale uu qaatay waxbarasho waxa kamid ah sida shahaadada digriga uu ku qaatay wadanka Masar oo uu ka baxay Institute of National Penalin in Cairo Egypt Postgraduate African Institute in Moscow Russia ayuu sidoo kale Dr. Cabdiraxmaan Ciro waxbarashadiisii sare uu ku qaatay shahaadada 1985 Bachelor of Science ayuu ku qaatay dalka Mareykanka gaar ahaan jaamacadda lagu magacaabo California mudane Cabdiraxmaan Ciro sidoo kale isla wadanka Mareykanka waxa uu ku qaatay shahaadada Master of Business oo ah shahaadada labaad Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro luqadaha uu ku hadlay kasoo luqadiisa afka hooyo
waxay kala yihiin dhowr luuqadood ay ka mid yihiin luuqadda ruushka luuqadda finlandiiska luuqadda carabiga iyo sidoo kaleeto luuqadda ingilishta oo ah luuqadda koowaad ee caalamku isku afkarto baahida dadkan u qaba inay gaadhaan hadafkoodii asaasiga ahaa ee in ictiraaf helaan oo aynu dhammaanteen u soconnahay inuu ninka kale hata gaadhsiin karayo markii ay burburtay dowladdii dhexe Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro waxa uu shacabkii Soomaaliland ee goonida u istaagay ee u qaxay dalkii Ruushka uu ka caawiyey sidii noloshooda iyo dhinaca sharcigaba ay u heli lahaayeen isagoo wadamada qaaradda Yurub iyo dalalkii kale doonayeenba u diray Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro waqtigaasi dadkii reer Soomaaliland ee ku sugnaa dalka Raashiya waxay aad ugu mahad sheegteen caawintii iyo sidii fududeed ee hadhiya habeenba iyadoo dalkaasi dhinaca barafka iyo dhibaatada dhaxantuba ay dadka layso ugu fudeeyey shacabkii reer Soomaaliland ee sagaashamaadkii tegay dalkaasi ilaa 1998 waxa uu ahaa hanti dhowrihii waxda socdaalka ee waddanka Finland sidoo kaleeto waxa uu ahaa caawiyaha hay'adda IOM ee waddanka Finland gaar ahaan waxda socdaalka xilalka kale uu soo qabtay Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro waxaa ka mid ahaa xogayaha Somali Social Democracy musharaxa xisbiga wadani Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro waa aabe leh 5 wiil iyo sidoo kaleeto hal xaas waxa uu degan yahay magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro sanadii 2005 ayuu isku soo sharaxay shaqada xildhibaannimo ee baarlamaanka Somaliland waanu ku guuleystay maxkamadda dastuuriga ee Jamhuuriyadda Somaliland waxay ansixisay natiijada doorashooyinka golaha wakiilada Jamhuuriyadda Somaliland ee komishanka doorashooyinka u soo gudbiyay 17 bishii Oktoobar 2005 tartan adag iyo waliba mudanayaal u badnaa Ciro uu hantiyay oo gaarayay 81 xildhibaan ee ka mid ah golahaas Cabdiraxmaan guusha waxa u dheereed wuxuu ku guuleystay xubintii ugu codka badnayd gobolka Saaxil ayuu ku guuleystay wax yar soo bixida hadaynu raadka dubur raacno labadii xisbi ee mucaaradka haba 82 mudane waxay ku guuleysteen inay 49 mudane helaan oo ah majority waa isku darka xisbigii kulmiye iyo xisbigii wicid mudanayaashii ka soo baxay iyar aynu xasuusanno jawigii maalintaasi iyo waliba sidii loo doortay gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdiraxmaan Maxamed Ciro oo ka mid ahaa aasaasayaashii xisbiga UCID waxa uu ka mid noqday saraakiishii kaalinta xooggan ka gashay xisbiga UCID isagoo ka qayb galay ololayaashii doorashada madaxtinimo ee Somaliland ay u tartameen Daahir Rayaale Kaahin Axmed Maxamed Siilaanyo iyo Injineer Faysal Cali Waraabe bilowgii sanadii 2012 ayuu ku dhawaaqay aasaaska urur siyaasadeedkii wadani oo uu kaga qayb galay tartankii adkaa ee ururada faraha badnaa oo dagaal adag oo siyaasadeed uu la galay xisbiyo badan urur siyaasadeedka wadani ee golayaasha deegaanka waxa weeye in la tayeeyo nidaamiyo wanaajiyo maamulka golayaasha deegaanka si ay muwaadiniinta iyo bulshada ugu fudiyaan adeeg wanaagsan waxaa ka mid ah in la xoojiyo kormeerka iyo hanti dhowrka si loo ilaaliyo hantida degmada waxa ugu muhiimsan oo nuxurka aynu ku dooranayna ay tahay in la siiyo bulshada degmada adeegyada aasaasiga ah ay u baahan tahay kuwaasoo dastuurkuna waajibiyey oo ugu horrayso biyaha nalka waxbarashada aasaasiga ah sida mulcaamadaha iyo dugsiyada hoose waxaad u baahan tihiin walaalayaal hoggaan idinka badbaadiya foolxumada qabyaaladda faqriga
iyo jahliga ayaa u baahantiin walaalayaal ku soo biira ururka waddani. waxaanu isla sannadkaasi si rasmiya xisbiga waddani loogu aqoonsaday xisbi qaran. ururka waddani oo u gudbay xisbi qaran. intii soo baxday iyo intii aan soo bixin iyo taageerayaashoodii iyo dhammaan shacbigii codkooda siiyey ee guusha waddani gaadhay maanta oo ku timi waxaa leenahay guushaasi waa guul la wada leeyahay qof kasta oo cod siiyey guusha waxba ku leeyahay waxaan ugu baaqaynaa shacbiga reer Somaliland in xisbigani uu yahay xisbigoodii shacbiga dhammaantii meel kastay joogaan gudaha iyo dibadba waxaan soo dhaweynaynaa walaalaha iyagii aan ku guulaysan dhammaantood waxaan leenahay xisbi qaran oo aynu wada dhisno ayaan idinku soo dhaweynaynaa insha allahu tacaala waanu idin mahadnaqaynaa muddo 12 sano golaha wakiilada Soomaaliland uu soo maamulayay gudoomiyaha Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro wuxuu maamulayay 28 xildhibaan oo matalayay 4 milyan oo qof oo shacabka Soomaaliland kana kala tirsan xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira kuwaasoo kala aragti duwanaa muddadii golaha wakiilada hogaaminayay wuxuu xaliyey khilaafaad adag oo qaybaha kala duwan ee soo food saaray maamulka xeerarkii ugu badnaa ee Soomaaliland ansixiyo hay'adaha dawliga ayuu ansixiyey waxaa golaha laga ansixiyey muddadii xilka waayey 250 xeer in ka badan iyo 244 qaraar ama resolution oo golaha la hor keenay waxaa qabsoomay shuruuc badan waxa sifayana kale oo aan la ilaawi karin 12 sano intii badnayd Cabdiraxmaan aqalka wakiilada xildhibaanada isku wada 12 sano ugu dambeeyay axyaqo ka yeedhama jirtay xildhibaanada baarlamaanka oo runtii aan islaahay u kala daadsanaa waa ninkii dhisay iskuna hayay intaas oo qof oo kala fikir duwan kala xisbiyada duwan isku hayay waxaan leeyahay dalka waa ninkii kaliya isku hayn kara muddadii golaha uu joogay wuxuu sameeyey saaxiibo badan oo caalamka isagoo ku guulaystay in baarlamaan badan oo Afrikaan ah iyo kuwa qaaradda Yurub isku xidho baarlamaanka Soomaaliland iyo dalalkaasi waxaan la joognay wasiir khaarijiga Itoobiya Cabdiraxmaan markuu la hadlay waad arkaysay labadeedii group markaad aragto wadan iyo kulmiye sida aanu maanta kala ahayn wuxuu kala hadlay arrimo culus wuxuu kala hadlay arrimaha regionka wuxuu ka hadlay ciidamadan ku hareeraysan badii casayd wuxuu ka hadlay militarigan iyo baseskan wuxuu ka hadlay dekadahan faraha badan wuxuu ka hadlay hawlo badan oo wadankan xuseeya oo dawladda Itoobiya si xoog leh isugu fahmay nabadeena inaynu nahadeenu Somaliland buffer zone ka ilaalinaya Itoobiya nahay ummadii Itoobiya iyo madaxdii Itoobiya la kulmay aad iyo aad u yaabeen waxay arkeen nin maanta aqoon-yahana vision leh cilmi leh aqoon leh waayo aragnimo leh karti dheer leh oo hoggaan rasmi noqon kara wuxuu xildhibaanada golaha baarlamaanka Soomaaliland markii ugu horeysay u furay oo u diray tababar caalami ah oo dalalka caalamka waxaana uu dhisay baarlamaan casri ah oo qalabaysan lana jaan qaadaya kuwa caalamka Cabdiraxmaan oo nin afgaabana dhaqankeennana aanay ku wanaagsanayn isamaanku ayaa waxaanay u suurtagelin inuu sheego guulo badan oo uu aqalka golaha wakiilada ka soo hooy golaha wakiilada waxaanu fadhiisanay isagoo aqal yar oo gaaban ah oo xaruntii golayaasha ayaanu fadhiisanay ma ilahayn arkiif iyo shuruucda lagu kaydiyo ma ilahayn taariikh sharciyadii soo baxday oo la tixraaco ma ilahayn xafiisyo gudiyadu fadhiistaan ma ilahayn qaab baarlamaanka u shaqeeyo maanta quruxda labada aqal ka muuqata oo ka bilaabantay aqalka wakiilada waxay ku timi hogaamintii Cabdiraxmaan iyo gudoomiyenimadiisa iyo xiriirkii caalamka uu la yeeshay oo uu soo jiiday dad inaga caawiyo dhismaha muddadii xilkay wuxuu la soo shaqeeyay laba madaxweyne Soomaaliland ugu dambeeyay waa Daahir Yaala Kaahin iyo Axmed Maxamed Sinaayo kuwaas wada shaqeyntooda iyo hay'adka dowladnimo aad loo amaanay muddadii wada shaqeynayeen 2 Agosto 2017 ayuu Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro iska casilay jagada gudoomiyaha golaha wakiilada maalintaasi ama dharartaasi xildhibaanada iyo golaha wakiilada Soomaaliland waxay wahayd maalin adag
waxaana xildhibaanadu ay sheegeen in mas-uul qiimo ku lahaa qaranka somalilan uu golahoogu iska casilay dareenka xasanaana ay ku ammaaneen hoggaamintii golaha uu maamulayey cabdiraxmaan maxamed cabdulla ciro dib aan idiin xasuusiyo mudanayaal inaan ka degay xilka iyo mas-uuliyadda guddoomiyaha golaha wakiilada macnaheedu maaha inaan ka tegay shaqadii qaranka ee waxaan isu diyaarinayaa inaan qabto kaalin ka mug weyn oo ah madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudanayaal haddii eebba idmo markii aan ku guulaysto himiladayda hoggaaminta dalkan waxaan idiin ballan qaadayaa in golayaasha sharci dejintu si dhammaystiran u helaan madax bannaani buuxda wuxuu lahaa waa ninka dhowr iyo 10 sano golaha isku soo waday waa nin dulqaad leh waa nin qiimo leh waa nin ammaano xajisa waa nin rusheega waa nin go'aanada waaqici markay taagan yihiin aan ka gaban buu ahaa waxaan rajaynayaa ama aan filayaa inaanu muddo badan maskaxdayda ku soo noqon doono guddoomiyaha hoggaaminta wanaagsan ee imakana hungureynaya xilka ka balaadan waa u sii ducaynaynaa golahan waa goli ugu soo wax soo saarka badnaa qarankan jamhuuriyadda Soomaaliland intii dhidibada loo aasay mandaqada bariga Afrika markaynu eegnana waxa uu noqonayaa baarlamaanada Djibouti Kenya iyo Ethiopia baarlamaanka ugu shaqada badan uguna soo saarida badan shuruucda dalka marka ninkii kasta doonaya uguna mushaarka yar leh xisbiyada sidaas ayuu Cabdiraxmaan isku waday waxa kale oo Cabdiraxmaan aad iyo aad dulqaad badan buu ahaa nin diblomaasiyuha nin doodaha xil dhageysta xildhibaanada ayuu ahaa wuxuu ahaa nin dulqaad u leh wax kasta oo ku soo maro golaha oo samir badan buu gudoomiyaha saddexaad ee golaha wakiilada waxa ka horeeyay xaabsade iyo qaybe isna taariikhda wuxuu galay kiis saxay inuu yahay golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland waxa lagu xusan karaa inuu ahaa ninkii saddexaad ee dalka maamuuska waxa kala madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo guddoomiyaha guurtida isna ka saddexaad buu lahaa wax badan baa lagu xusan karaa wax lagu xusan oo dulqaad aad ugu dulqaad badnaa waayo mudanayaal shucuurtooda kacsatoo 28 oo kala mabda'a ayuu isku waday musharax xisbiga mucaaridka wadani cabdiraxmaan maxamed cabdulla ciro oo sanadkan gudihiiska iska casilay jagada guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland oo 12 sano soo maamulayay laguna amaanay hoggaamintiisii siyaasadeed iyo tii maamul ee golahaasi iyo hanaankii shaqo u dhaxeeya kala duwan ee nidaamka dawliga ee Soomaaliland ayaa wax u booqday oo salaan ugu tagay waqtigaasi madaxweyne Axmed Maxamed Sinaayo madaxweynaha Soomaaliland iyo marada koobaad Marwaan Waris iyo xubno ka mid ah golaha wasiirada maalintaasi marwada madaxweynaha Soomaaliland Marwaan Waris waxay ammaantay hoggaaminta Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulla Ciro dareenkii maalintaasi sidan ayuu ahaa xaaladda bulshada waxa uu yahay xogogaal duruufaha ay ku nool yihiin ayuu ka warhayaa dhexgalkooda iyo la dariska waayahooda nololeed ayuu ka dheragsan yahay si uu war u helo nolosha bulshada waa la saaxiib wadhatad iyo danyartana cidi ugama waroona see leeyahay khayr kan imisa la siiyaa kan imisa la siiyaa طبعا بري هوري مسوها شامبوها بري هوري
صدح ذا يجيب صدق بري ورا شنية طبعا أنت السما بيا هانتي بري ورا شامبو هانتي أيه هذا وقت طبعا لا تروح ما يمسك كلام هذا ما يمسك كلام سعيد برك أوجي واحد بدي يسأل حبض البرجر markii hore waxana laga sii jiray kushin imaka waxana laga siiyaa xabada 1200 kow yarna kushin imisa idin kula siistaan anaguna 1500 kushin marka intaas imisa noqonaysaa aye 15 kun بريء هرم سهل أنت قياسي. أنت سوي هيدا مركب وقال سنة توقف. بريء هرم توقف بيهاي. إما كان شن يتوقف. يعني يلا مثال سيا كيلو. يعني يلا كيلو ده. على السنة 6 كيلو 20 تطبق كيلو 20. بريء هرم سهل. بريء هرم. وحياي شو كيلو 20 نحو كيلو 20 ما نبغى بيمري. بيهاي. أي 6 كيلو يجيبي. 6 كيلو مفهوم يسا. وتي نوب هذا سوما. وتي دلكنا. وتي دلكا. أيه. وكا. لما سودو فيو. لما سودو فيو. أيه. وكا. ووتني قدرتا. صح. إم بيسوي. أنا كويسة. قطبك لا شو بيسوي كوبي لا تستدعي كوبي. سوي لا. muwaadin wuxuu qofku ku yahay helidda xuquuqdiisa muwaadinimo oo ay qayb ka yihiin tiirarka nolosha aasaasiga u ah duruufo adag oo wehel u ah bulshada Somaliland waxay nafa badan galaafteen noloshooda gar iyo magli iyo ka warhayn la'aan ayay godka u galeen tacliintu maaha bilaash mana laha tayo sidoo kale maaha mid u adeegta danta baahida iyo duruufaha qarankan dalkeena maalin kasta shacbigeenu wuxuu u dhintaa toban waa run oo geeridu waa xaq waana la dhimanayaa bal laakiin dhibaatooyinka sababo ayaa inagu kalifa xanuunaan hore dalkeenna hore ugu dhici jirin wakhtigii aynu reer guraaga ahayn ayaa maanta tarab dadkeenna u laaya waxaa shacabka dawladdu xaq ugu leeyihiin inay helaan daawooyin aan dhicin oo tayaysan iyo cunto la hubiyey oo aan iyaduna dhicin bal u fiirsada qof kasta oo dunidan ku nool waddankiisa wuxuu muwaadin ku yahay marka uu helo biyo nadiifa adeeg caafimaad oo dhammaystiran waxbarasho tayadeedu sarrayso oo lacag la'aan ah una adeegta baahiyaha qaranka iyo amniga maanta amni waynu haysannaa waana mahadnaq ilaahay aynugu mahadnaqayno waxaynu taa ugu sii mahadnaqaynaa ciidamadeenna
aynu ku seexanno hadh iyo habeen ee ku samray duruufaha adag mushaharyarida iyo daryeel la'aanta musharax xisbiga mucaaradka wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilla ciro 3 doorasho ayuu soo galay oo ku guulaystay 2005 waxa uu isku soo sharaxay xildhibaanka aqalka golaha wakiilada Soomaaliland ee gobolka Saaxil isagoo noqday xildhibaankii ugu codka badnaa isla sanadkii 2005 waxa uu isku soo taagay jagada gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland isagoo noqday xildhibaankii ugu codka badnaa waxaana noqday mudanihii ugu horeeyay ama gudoomiyihii ugu horeeyay ee golaha wakiilada Soomaaliland ee ku yimaada cod dimuqraadi oo shacabka Soomaaliland ay sameeyaan cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan ciro musharax xisbiga mucaaradka wadani sidoo kale dabayaaqadii 2011 waxa uu aasaasay xisbiga mucaaradka wadani isagoo tartan adag la galay urur siyaasadeed oo farabadnaa waanu ku guuleystay waxaanu xisbiga mucaaradka wadani noqday xisbi xoogan oo si weyn loogu taageersan yahay deegaanada iyo gobolada Soomaaliland cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro musharax xisbiga mucaaradka wadani oo aasaasay xisbiga mucaaradka wadani waxa uu 13 November 2017 u tartamaya doorashooyinkii aqalka madaxtooyada Soomaaliland isagoo tartan la galaya musharaxiinta kala Muuse Biixi Cabdi oo kulmiya iyo Injineer Faysal Cali Waraabe oo ciidaa